برشدة تدوينة باق برشدة تدوينة إلا بهيايو لبالله إلا بهيايو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي مقالك حاجات channel علم السيدة صاحب هدية تها مركو بوريسا صوب وقت channel سبسكرايب صار كمبريل كفرو لاج إنه صار سيد نقول يرجلسو حنقارن دونا مانتا حساب كمية حساب هنا امتحانها مادة حسابتا كلاس 4 حنقارن دونا 10 ماشي إنه تشوفين يعني كسو عندنا waxay noogu dambeysay aan soo qaadan example 10 ka noogu dambeysay soo qaadan waxaan ku soo qaadan example 1.7 iyo 1.8 section ka koowaad waxaa nooga haray example ka 1.9 ayaa nooga haray waa page ka 13 halka ayaan ka bilaabanaa 13aad ayaan ka bilaabanaa haddii alla wada loo kala noqdo su'aasha lagu weydiiyo waxay tahay example ka 1.9 how to verify waxaa lagu dhahay caday that the following kuwan soo socda equations is like inay yihiin identities ku isle waxaan soo socday equation soo socday inay yihiin identities inay leeyihiin ku isle waxaa lagu siiyay marka hore sin waxaa lagu siiyay pi over 6 plus theta oo lagu daray cos pi divided by 3 plus theta inay la mid tahay cos theta ina cadeysa laga rabaa inay isleeyihiin ina cadeysa laga rabaa macna isla egta dhankan jirta markii laga shaqeeyo inay la mid noqon doonto cos theta ina cadeyso ayaa laga baahan yahay. Okay, aan bilawna marka ugu horeysa solution keena mar walba waxaan rabaa marka intaanan solution bilaaban korna maskaxda ku hayso mar walba inay pi la mid tahay 180 inay la mid tahay inaan maskaxda ku hayso. Okay, marka waxaan ku bilaabaynaa maadaama cadaynayna labada qaybood qaybna ay ku qoran tahay sin iyo cos ku darsan oo ay la mid noqon doonto cos theta ay la mid noqon doonto ay ku qoran tahay waxaan ka shaqeynaynaa qaybta cos theta uma baahnin waxaan furfuri doonaa qaybta ay ku qoran tahay sin pi over 6 plus theta oo lagu daray cos pi over 3 plus theta qaybtaas ayaan furfuri doonaa waxaan caddayn doonaa inay la mid noqon doonto cos theta aan bilowno marka insha Allah aan dhahno marka solution oo waxaan dhahnaa solution xalino. Okay, solution kan aan bilowno ko waxaan dhahnaa horta dhanka ay ku qoran tahay cos theta in la mid tahay aan dhaho cos theta oo equal ka dambeysma qaadan doona kan hore aad ka furfurayna kaliya waxaa laga rabaa markaan kasoo shaqeyn inay cos theta la ekaat caddeynta aan shaqeyn doono ama wax aan qaban doono intaas ugu muhiimsan marka qaybta hore ayaan iska qornaa qaybta dambe ay dambeys waxaan ka bilaabaynaa waan dhahaynaa sin waxaa inoo qoran sin bracket aan furano waxaa inoo qoran pi divide by waxaa inoo qoran 6 plus theta plus cos bracket aan furano waxaa inoo qoran pi divide by waxaa inoo qoran 3 dib inoogu soo wax kalma samayn doono plus theta inay la mid noqon doonto cos theta ayay noo tahay marka hore inay la mid noqon doonto cos theta marka qaybtan iska qornayna hadda waa ka tegaynaa laakiin markaan ka shaqeynayno furdaanka waxaan furfurayna waa qaybtan ko waxaan ka bilaabayaa marka marba haddii aan rabo inaan istiraan ka shaqeeyo tana waxaan ka dhigi doonaa haddii Allah wadal oo karaale noqdo sida quruxda badan ama fiican hore waxaa fiican inaad iska bedesho aad isticmaasho 90 degree ee u dhigmaana isticmaal haddii aan dhaho marka kan waxaan ku bedelaynaa si aan isaga soo gaabsado waxaan dhahayaa sin calaamad sabab waxay noo dhigantaa 180 haddii aan la u qaybin 180 waxay noqon doontaa 30 degree bedela horaan ka bedelaya waxaan dhahayaa marka sin 30 lagu daray theta plus kaasna si lamid ah ku samayn doona waxaan dhihi doonaa cos pi loo qaybiyo 3 pi waa 180 aan u qaybiyo 3 waxay noqon doontaa waa 60 waxaan ka dhigan doonaa cos 60 oo taas ay islaan doonto inaan ku shaqeeyo pi ku wareerinaysa inaan ku wareerta laga yaabaa plus theta. Okay, kana furfurtaan ku wada marka qaybtan kaligeed maxay noqon kartaa qaybtan kaligeed maxay noqon kartaa marka qaybtan ku aan ku bilaabo maadaama ay taalo sin 30 plus theta waxay u dhigantaa a plus b sin a plus b sin a plus b maxaa la sameyn jiray marka fartan yareynaya si ay sabuurda noogu deeqdo waxaan dhahayaa marka waxay la mid noqon doontaa sin markii xeerka la joogo xeerka sin waxaan sameyn jirnay mar walba xeerka sin la joogo waxaad sameyn jirtay waa taqaanaa waxaa imaan jiray mar walba sin la joogo waxaa mid sin cos marka waxaan dhahaynaa sin cos aan raacno oo waxay noqon doonaa sin 30 oo ay la socoto cos theta plus. Okay, maxaan ku daraynaa kadana waxaan ku daraynaa cos waxaan dhahaynaa cos 30 oo ay la socoto sin theta
intaas waxaan furfurnay waaxda koowaad si lamida cos haddana aan furfurno plus aan hore usii wadno marka waxaa qurux badan marka si aadan ugu wareerin inaad qaybtaas ku xirato bracket haddii kale waxaa laga yaabaa shaqadu inay iska qasantayaa laga yaabaa waxay aan dhahna marka plus qaybta kale aan hore u socono waxaa haysanaa cos 60 plus waxaa haysanaa theta cos xidhis waa taqaanaa cos iyo noo ahaa cos xidhis iska qor marka waxaan dhahaynaa cos 60 oo ku dhacsan cos wuxuu noqon doonaa theta haye mar hadduu cos balaas yaalo waxaan qaadanaynaa halkan calaamadda waa la rogayo waxaa laga dhigayaa bedelka cagsiga minus kadib waxaan dhihi doonaa sin waxaan dhahaynaa sin 60 sin 60 oo ay la socoto maxaa la socdo sin 60 oo ay la socoto waxaa la socdo sin theta sin 60 waxaa raaci doona sin theta waxaa sidoo kale qurux badan qaybtan kalena inaad bracket kale ku xirto si aysan isu kaa darsanin haddaba mar haddii aan intaas haysto oo labada waaxood ay naqshadaas yihiin wax kale ma samayn doono qayb waliba waxaan samayn doonaa waan furfurayaa geeska waxaa igu xiga igu horeeya kushka igu horeeya waa sin waxaa noogu horeeya sin 30 ayaa noogu horeysa maadaama sin 30 ay noogu horeyso waxaan samayn doonaa sin 30 waan furfuraynaa maxay noqon doontaa haddaan furfurno sin 30 furfurda waxay noo noqon doontaa haddaan furfurno waa iska taqaanaa sin 30 markii la joogo ama jadwalka ka fiiri ama calculatorka weydii haddii kale waxaa jira qaab aan ku sheegnay faraha in lagu fahmi karo ayaa jira oo ka sahlan waxaas oo dhan iska fiiri marka sin 30 markaan ka hadlaynaa soo gaabsaday marka wadada doonto soo mar laakiin natiijada inaan soo heshaa muhiimsan waxay noqon doontaa 1/2 marka meesha waxaan ku qorayaa 1/2 oo ay la socoto cos theta waxaan ku fasirnaa ma naqaano caadi inoo qor cos waxaan dhahaynaa cos theta haye lagu daray سلامي waxaan haysanaa costat idina waa xalin karnaa costat waxaan ku xalin karnaa waxay noqon doontaa waa radical 3/2 ayay noqon doontaa waan qoranaynaa marka waxaan dhahaynaa radical 3/2 ayaan dhahaynaa waa costat sin theta laakiin waxaan ku sarifno ma naqaano waa iska qoranaynaa sin theta caadi aan qoranaynaa okay halkaan markaan joogno oo bartaas aan marayno oo aan taaganahay dad bracket waa ka tagi kartaa dhib male wax kala kooxeen kaliya ayuu sheegaa bracketka haddaan israacsado si aan ugu wareerin ayaan marka hore soo galiyay haddana waan ka tagayaa silamida cos 60 maxay la ekaan doontaa cos 60 waxay la ekaan doontaa waa 1/2 cos 60 waxay la ekaan doontaa silamida 1/2 waan qoranayaa caadi aan qoranayaa 1/2 cos theta ma naqaan waxaan ku bedelnaa iska qoranaynaa cos theta iska qoran okay mar dalkaas taaganahay laga jaray aynu nidaamka marka dhahno laga jaray sin 60 maxayna la mid noqon doontaa sin 60 waxay la mid noqon doontaa radical waxay la mid noqon doontaa 3/2 anoo qor waxay la mid noqon doontaa radical 3/2 ayaa la mid noqon doontaa okay halkaas markaan marayno maxaan ku dari doonaa sin theta barta markaan taagana halka aan marayno waxaan dhahaynaa aan shaqeyna marka haddii ala wadalo oo karaan noqdo sida aad garan karayso marka halka waxaa kugu qoran radical 3/2 oo sin theta ah iyo radical 3/2 oo sin theta ah oo qaybtan ay tahay plus qaybtan ay tahay minus sida daraad waxaan dhigi karaa horta kan iyo kan waxaan dhahaynaa qaybtan iyo qaybtan aan isla bixino isla jaraynaa maxaa yeelay waa isla midna waa plus midna waa minus isla baxayaan waxaa halka igu soo har doona marka 1/2 oo cos theta ah iyo 1/2 oo cos theta ayaga aan qorto jawaabta ayaga ayaa isoo saari doona oo natiijada xaggooda ayaanba ka heli doonaa okay maxaan dhahayaa marka aan hor u socdo insha Allah aan hor u socdo halkaan ku qori doonaa si aan u sii garato oo tirtirka uusan noogu badan waxaan dhahaynaa marka waxay la mid tahay aan yiraahdo waxay la mid tahay waxay noo soo haray 1/2 cos theta oo lagu daray mid kale oo iyada la mid ah 1/2 oo iyana waliba ah cos theta mar haddaan halkaa joogno oo labada saami isku mid ay yihiin cos iyo cos da isla mid yihiin horgalayaasha la isku diray sida aad taqaana half hadii lagu daro half wuxuu noqon doonaa 1 sida daraadeed xisaabteena jawaabteedu waxay noqon doontaa oo aan ku soo gabagabeyn karnaa half lagu daray half waa iska caan oo waxay noqon doontaa half lagu daray half waxay noqon doontaa iska muuja daarto waxaan dhigi kartaa labada cos ka soo qaado hal xabo waxaa jira 1/2 lagu daray 1/2 fractionada isku dar sida aad ku taqaan aljabraha aad ku taqaanay aad ku fahamsan tahay inta badan
haddii laba xarf la isku daraayo horgalayaashooda lagu dhaho 2a ku dar a baa laga soo qaadaa horgalayaasha isku daraa isla mid cos theta baan ka soo qaadayna horgalayaasha isku darayna marka waxaan dhahaynaa horgalayaasha waa 1/2 oo ay raaci doonto maxaa raaci doona 1/2 maxaa raaci doona oo inoo raaci doona waa cos waxay inoo raaci doona theta haddii aan marka laba hoosteeyo hal xabka ka soo qaad sare isku dar waxay noqon doontaa laba la hoostiga labana natiijadu waxay ku idlaan doontaa ama ay ku dhammaan doontaa inaan idhaahdo 1 oo maxay ah cos waxay noqon doontaa 1 waxay noqon doontaa oo cos theta 1 horgalaala lama muujiyo sida daraadeed jawaabteedu waxay noqon doontaa ay ku dhamaanaysaa ugu dambeyn inaan idhaahdo cos theta waana cadeeyay waxa la diray hadii laga shaqeeyo equationka koowaad inay la mid noqon doonto cos theta soo cadeey ayuu falgalkayga ama waxyaabaha la diray ahaa halka waxay noogu dhamaaday sectionkeena koowaad ayaa inoogu dhamaaday hadii Allah wadalo oo karaan noqdo waxa inoo bilaaban doona section 2 ayaa noo bilaaban doona waxa ku xiga exercise inta badan ardaydu waxa fiican qurux badan exercise ayaga soo xaliyaan anaga waxaan taas u galeynaa sectionkeena kale double angle formula maadaama waqtiga aad inoo haya oo arabna ka faa'iideysano ardayduna inta badan imtixaankii ku dhow yahay marka aan hor u socon insha Allah double angle ayaan bilaabeynaa hor u soconeynaa sabuurda masaxano double angle formula hadii aan galno intaanan example ka shaqeyntooda iyo waxyaabo la mid ah aanan aadin ka hor waxa muhiim ah double angle formula hadii aan hor u galno intaanan ka shaqeyn iyo wax la mid ah aan naqaan muhiim qaacidooyin basic ah oo book nagu wada qoran laakiin meelo kala duwan oo si ku kala firaarsan ayaa jiro ayagoo kooban insha Allah aan qaadan insha Allah waxa noogu horeeya kow aan ka hadlaynaa double angle formula laga hadlayo intaanan midagani waxa reena ku shaqeeyay keenay marka double angle formula wax kala maaha wax cusub yeesan kula noqon arday walba kamid ah ardayda dugsiga sare baranaya chapter kan ama qaybtan ka baranaya wax cusub maaha waa some and different formula oo loo qoray si kale fakarkiisa some and different formula waxyaabo kale laga sii ikhtiraacay oo laga dhaxbiyo maaha xeer cusub ama qaacid cusub maaha kaliya waxay u baahan tahay laga dhaadhic insha Allah inta aan ka gaarno oo karaan keenana wax badan aan ka dhaadhicino aan ka fahamta rajina ku waxa ugu hore xeerka aan ka hadli doono waa sin 2a ina la mid tahay sin 2a ina la mid tahay 2 sin a oo ku dhacsan cos a marka qodobka koowaad wuxuu ahaa sin 2a ina la mid tahay 2 sin a cos a xeerka koowaad waa principal 1 2 waxa noqon doona si la mid ah cos 2a ina la mid noqon doonto cos square a laga jaray sin square a qodobka principal keena saddexaad wuxuu noqon doonaa cos 2a ina la mid noqon doonto 2 cos square a laga jaray 1 qodobkeena afraad wuxuu noqon doonaa cos 2a ina la mid noqon doonto 1 minus 2 sin square a qodobka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa qodobada tan 2a ina la mid noqon doonto 2 tan a la hoos dhigay 1 minus tan square a intaas ay shanta qodob ee muhiimsan oo markii laga hadlayo double angle formula dhamaantood waxa laga wada keenay some and different formula waxa rabaa marka inaan cadeyno proof inaan ka sameeyno cadeyno meesha laga keenay si loo fahmo insha Allah asla socono waxaan ka bilaabeynaa oo aan ku cadeynaynaa hadii Allah wadal oo karaal noqdo meesha laga keenay sin 2a ayaan ka bilaabeynaa waxaan ka bilaabeynaa sin a plus a awlan markii laga hadlayo double angle formula waxa loo isticmaalaa sida caadiyan markii laga hadlayo some and difference waxa la isticmaalaa tusaale oo kale markii lagu dhigo sin 30 plus 45 labada degree midna waa 30 midna waa 45 kala gedisan markii number noocaas oo kale lagu dhigo waxa qasab inaad isticmaasho some and difference formula laakiin sin kan oo a aan ku qoray ama double angle formula waxa la isticmaalaa markii lagu dhigo sin 30 plus 30 laba 30 lagu dhigo isku mid ah ma kala duuno a b ma ku magacaabi karto marka waa inaad tiraahdaa a plus a xeerka haduu noqdo laba tiro isku mid ah oo wadar laga sameeyay oo sin ama cos uu la socdo waxa isticmaali doontaa double angle formula marka aan sameeyo double angle formula aan waxaan rabaa inaan cadeeyo waxaan dhahayna marka sin a oo sin a plus a aan taaganahay sida caadi aan isticmaalo some and difference formula muxuu sheegay wuxuu ahaa mar hadii sin la sheego waxa la dhihi sin iyo cos aan qorano marka waxaan dhahaynaa sin iyo cos aan qorano waxaan dhahaynaa marka sin a waxa lagu daraayay cos b maanta waxaan raacinayna cos b boodka b waxa noogu jira a noogu jirto labada a noqdeen maanta waxaan dhahaynaa marka sin a oo ku dhacsan waxaan dhahaynaa kaliya cos a lagu daray kadib waxaan dhahaynaa hadana si lamid ah waxa noogu xigay cos a
oo ku dhacsan sin b sida daraaddeed booska hadda maanta laba meel a ayaa noo wadataa waxaan dhahaynaa cos a lagu dhiftay waxaan dhahaynaa sin a halkaa markaan wada marayno waxaa halkaa kaga muuqda sida aad garan karto oo kuu muuqato waxaa halkaa ka fahmi karaysaa in maxaa lahay guud ahaan meesha wax kugu yaala isleeyihiin keliya farsamo yar ay jirto halkan waxaa ku yaala sin a oo ku dhacsan halkan waxaa ku yaala sin a oo ku dhacsan cos a halkan waxaa ku yaala cos a oo ku dhacsan sin a keliya ay kugu qoran tahay xagga horeysiinta cos ay kugu qoran tahay sida daraaddeed si aan u simo labada ay u sinaadaan maxaan ku samayn doonaa kanaan kala bedelayaa oo waxaan dhahayaa si aan u wada simo waxaan dhahayaa kan hore iska qororto waxbaa ku samaynin waxaad tirahdaa sin a cos a iska qoro kan kala bedel waxaan dhihi doonaa sin a soo horumari cos a gadaalgey waxaa su-aal isweydiin kartaa say ku dhici kartaa sida aad taqaana haddii aan xisaab soo qaato aan ku iraahdo labo lagu dhiftay 3 waa 6 jawaabtii waa iska taqaanaa haddaan u qoro 3 lagu dhiftay labana jawaabtu weli waa 6 waxba kuma kala duwana marka labaan tiro cos a iyo sin a waxaa ka dhacaysa ku dhufasho waan kala horumarsan karaa anoo u samaysanaya qaabkan u doono ayaan u habaysan karaa laakiin in xeerka dhaafo keliya ayaa la diidaya markaas waxaan dhahayaa lagu daray waxaan ku daraynaa sin waxaan dhahaynaa a oo ku dhacsan waxaan dhahaynaa cos a halkaa markaad joogo meesha waxaa inooga soo baxay sin a iyo cos a iyo sin a iyo cos a oo isla mid ah haddaba si aad taqaanay haddii la joogo addition of polynomial markii la joogo ama addition of binomial markii la joogo markii la isku darayo tibxaale markii la isku darayo waxaa la jira horgalayaashooda ayaa la isku daraya haddii ay xarfaha is leeyihiin marka inta aan ka soo qaadnay xarf ahaan yihiin kan horgeliis waa hal kan horgeliis waa hal waxaa halkaa inooga imaan doona inaan yidhaahdo 2 oo ay la socoto sin waxaan dhahaynaa a cos a wal xarfahan hal xaba ka soo qaado horgalayaashooda isku dar halkaana soo gaabso sin a plus a marka hore taagnayn sin a plus a na maxaa laga soo gaabin karaa a lagu daro a laba a hal xaba ka soo qaado hortaan korna marka hore sin dheh laba a hal a ka soo qaado horgalayaashooda kan hal horgalo wataa kan hal horgalo wataa waxaad tirahdaa labo halkaas waxaan ku cadaynay sin 2 ayna la mid tahay 2 sin a oo ku dhacsan cos a waxaan gelaynaa marka qodobka labaad inaan hore u cadayno insha allah sabuurda ama saxan si lamida cos 2a marka arkaysa waxaa laga keenay cos a plus a ayaa laga keenay oo labada a hal xaba laga soo qaado horgalayaashooda isku darsan saxiix ku noqotay cos 2a marka maanta meesha laga keenay oo celina waxaan ka dhignay cos a plus a marka halkaan joogno waxaan isticmaalaynaa some difference formula si aan u cadeyno waxaan dhahaynaa waxay la mid noqon doontaa cos xeerkeeda waa taqaanaa markii cos la sheego waxaa la jira cos marba cos la sheego cos marka cos a cos b la jira marka maanta laba meel waxaa inoo yaala waxaan dhahaynaa cos a kale okay halka waxaa yaala ku dar haddii halkan ku dar ay taalo calaamada isbedelaysa waxay noqon doontaa laga jaray kadib waxaa imaan doona dana si lamid ah sin waxaa imaan doona sin a oo ay la socoto sin a kale maxaa sababta kelifaysa waxay tahay a iyo b la raacin jiray labada meel waxaa inoo yaala a inoo taala marka halkaan joogto cos a iyo cos a laba tiro oo aad taqaano xaraf haddii is agyaalaan waxaa ka dhexaysa isku dhufasho sidaa daraaddeed cos a iyo cos a waxaa ka dhexeeya isku dhufashaa ka dhexaysa waxaa usoo gaabsan kartaa marka waad dhihi kartaa way noqonaysaa inaan idhaahdo cos square ilaa laba tiro dil isku dhufto oo xarf isla waxaa la dhihi karaa a ku dhuf a square la soo qori karaa sidaa daraaddeed cos lagu dhufto coska waxaan qoraynaa cos square laga jaray sin lamida ku sameey waxay noqon doontaa sin square a ayay noqon doontaa halkaas waxaan ku ogaatay marka aan ku xaqiiqsanaatay in cos a sida aan sameyn doono horgalaha isku daraa wuxuu noqon doonaa 2 cos 2 a ayuu noqon doonaa waxaa halkaan kugu cadaynay oo aan ku hubinay in cos 2 a ay la mid noqonayso cos square a minus sin square a aan hor u socon xeerka saddexaad aan galno sabuurda ama saxano waayahay marka aan qorayno xeerka saddexaad cos 2 sida aan ognahay jadwalka markii laga hadlayo kale sin hal xeer ayaa leedahay cos waxay leedahay 3 xeer tankan hal xeer ayuu leeyahay 5 xeer isku noqon doonaan ulo mar qaatan uu yeesho 2 xeer uu gaaro halo qaar ay ka dhigaan 6 laakiin sida buugan ku qoran taban 5 xeer ayaa noo qoran marka xeerka koowaad hadaan soo saarnay cos waa iska naqaanaa mucayin qaab sahlan ku soo baxay laakiin cos xeerkeeda labaad waxaa ku jira intaan proof kala sameeynin kor waxyaabo maqan ay raadin doonaa ugu horeysa sida aad taqaana Pythagoras theorem inaad taqaana rajayna haddii alla wadal oo kala noqdo Pythagoras theorem wuxuu dhahayay haddii aan xoogaa yar xusuusin yar sameeyo waqtigana waa aad u yar yahay xusuusin yar baan sameeyo Pythagoras theorem waxaa la dhahayay aan sameeyo triangle or right angle triangle inta ba trigonometry markii la right angle triangle ay ku saabsan yahay ninka trigonometry markii aan ka hadlo xeerka Pythagoras theorem meesha ka soo galay leenka aan ka soo qaadno la igyahay a kan aan ka soo qaadno la igyahay b kan aan ka soo qaado c xeer guud waxaa Pythagoras theorem la yiraahdo dhahayo c square waxay la mid tahay
a square oo lagu daray b square xeerkaas in arday in badan ay yaqaanaan primary xataa lagu soo qaato warajina wax kale igama keenin slope waaye wadaan slope waaye qof haddii aan tusaale ka soo qaadiyaan bartan taaganahay haddii aan wadadan maro oo aan halkan tago oo aan haddana wadadan kale aan maro halkan ayaan tegi doonaa ugu dambeyn anoo marka soo daalay ayaa waxaan tegi doonaa wadadaas bartaas ayaan tegi doonaa meesha hadda aan ku sameeyay xidigta ayaan tegi doonaa waxaa la mid ah marka hore halkan aan ka tegi waxaa la mid ah inaan wadadan maro marka qofkii inta mara haddana halkaas iyo halkaas u tegi doonaa qofkii halkan marana toos iyo halkaas u tegi doonaa marka xeerka waxa uu sheegayaa haddii aan a maro oo aan ku daro wadada kale b waxaan gaari doonaa anoo c maray wadadii aan gaari lahaa wada lamida marka Pythagoras theorem wuxuu dhahayaa a square waxay la mid tahay and c square waxay la mid tahay a square oo lagu daray b square marka xeerkaas ayaa waxa jiro iyadoo loo isticmaalayo sin iyo cos formula qaab loo isticmaalayo jiro xeerkaas aan qorno marka xeerkaas ayaan ku xasuusinayaa aan hor u socdo maanta waxaan isticmaalaynaa marka haddii Allah wadalo uu karaal noqdo waxaan isticmaali doonaa cos square a oo lagu daray sin square a inay la mid tahay 1 wax kale lama sameyn marka halka la joogo waxa laga wadaa cos square waxa ka soo qaadaa inuu la mid yahay a sin square waxa ka soo qaadaa inuu la mid yahay b c square waxa ka soo qaadaa inuu la mid tahay 1 1 waa square garan kala ka square garan wuxuu soo kornaa haweeraatay ma jiro marka xeerkaas aan ku shaqeynaynaa oo noo noqon doona furo haddii Allah wadale uu karaali noqdo principalkaas ayaana isticmaali doonaa marka halkan aan joogaa maxaa iga qoseeya oo aan ugu baahanaa meeshan waxaan raadin doonaa maadaama wax aan raadinayo uu yahay cos xeerka cos markii la furfurayo wuxuu u baahan yahay uu baahnaan doonaa in la helo u baahnaan doonaa sin iyo cos in la helo ay u baahnaan doonaa labadaba okay marka aan socdo insha Allah xeerka markaan joogo maanta waxaan ka soo qaadayaa in ay maqan tahay cos inay maqan tahay aan dhaho waxaan ka soo qaadayaa kana wareejin doonaa inaan cos u baahanaan ka soo qaadayaa haddii aan inta joogo kali cos aan uga baahnaa meesha maxaan ku soo saari karaa maxaan ku soo baxsan karaa oo uga soo saari karaa waxaan uga soo saari karaa inaan iraahdo cos square waxaan ku heli karaa cos square waxaan ku heli karaa aan ku heli karaa 1 laga jaray waxaan ka jaraynaa kan inta balaas uu ku yahay haddii xagga aan geemayno soo noqon doona 1 laga jaray waxaan dhahaynaa sin square ayaan ku heli karnaa waa markaan u baahanahay inaan helo cos square qodobka kale haddii aan u baahanahay sin si lamida waxaan dhihi karaa sin square waxaan ku heli karaa markaan sin u baahanahay kan kale aan wareejin doonaa wuxuu noqon doonaa 1 minus wuxuu noqon doonaa cos square yani midka ay haysto kiisa kale ayaa wareejinaysa marka labadan qodob ayaan qaadan doonaa oo aan u baahanahay furo iyo noqon doonto inaan ku shaqeeyo inta badan waxa laga yaabaa lagu soo gaagaabiyay ama hor soo qaato way dhici kartaa laba midkood marka waxaan ku shaqeyn doonaa marka aan raadinayo cos saddexaad iyo cos afraad markaan cos saddexaad raadin doono cos a ayaan ku bedeli doonaa meel ay ku jirto sin meel ay ku jirto cos ayaan ku bedeli doonaa marka aan joogo si lamid ah labadana midkood isticmaali doonaa insha Allah aan hor u socono marka sida hadda soo cadeynaba cos 2 waxay la mid noqon doontaa inoo soo noqotay halka soo hubinay in la mid noqon doonto cos square laga jaray waxaan ka jaraynaa sin square waa tii haddaan soo cadeynay halkaas ayaan kasii ambaqaadaynaa waxaan iska bedelaynaa marka si aan u hubino cos 2 aan u hubino waxaan ka soo qaadaynaa sin inay maqan tahay sin waan bedelaynaa markaan bedelin waxaan ku bedeli karnaa haddaan soo hubinay waxaan ku bedeli karnaa sin waxaan ku bedeli karnaa waa 1 minus cos square kaasaan ku bedelaynaa marka waxaan dhahaynaa cos square laga jaray 1 laga sii jaray laakiin waxaa qurux badan inaan bracket u sameeyo 1 laga sii jaray maxaan ka jaraynaa cos square intaan ka keenay 1 minus cos square waxaan ku bedelay sin ilaa haddaan soo cadeynay xeerka haddaan ku soo cadeynay aan hor u socono marka aan hor u socono insha Allah waxa inoo xiga aan hor u socono waxa halka inoo xiga inaan sii fududeyno kaliya wax kale noogama baahno waxaan dhahaynaa cos square 1 qaad 1 minus kan qaad 1 ku waxay noqon doontaa minus 1 si lamida minus kan qaad minus ku waxay noqon doontaa plus oo ay la socoto cos square halka markaan joogo waxaan dhihi doonaa marka aad u fiir insha Allah halka markaan joogo waxa inoo imaan doona inaan niraahdo 1ka minus ka ina xagga dambe iska geeyno labada koos isku darno coskan waa plus coskan waa plus waxa iga soo bixi doona 2 la socoto cos square soma ila coskan horgalada waa hal coskan horgalada waa hal wani sameeyeen waxaan ka soo qaaday hal xabo waxaan dhahay marka 2 cos square laga jaray 1 intaas yaa lamida marka oo aan maanta una cadeynayay
waxaa la mid ah intaas aan hubinaynay cos 2a marka waxaa sidaas ku hubinay xeerkeeni saddexaad aan aadna xeerkeena afraad xeerkeena afraadna mar walba wuxuu ka bilaaban doonaa base-ka waxa ah cos 2 ina limit cos square a laga jiro sin square a laakiin sida day aan sameeyno mar waxaan bixinay sin haddana waxaan bixin doonaa cos si xeerka kale loo helo waxaan ka soo qaadanaynaa cos maqan tahay oo aan waxba ku bedelan cos waxaan ku bedelaynaa qiimaha ku bedelan wuxuu noqon doonaa hadii ay cos naga maqan tahay waxaan ku bedelaynaa 1 laga jiray sin waxaan dhahaynaa square a ayaan ku bedelaynaa intaas waxay u taagan tahay qiimihii waxay u taagan tahay cos ay u taagan tahay okay laga jira aan dhahaynaa markaas kadib sin square a halka markaan taaganahay aan shaqeyn insha Allah waliba dad doonto bracket ka iska diin kartaa maanta wax muhiim ah kuma soo kordhinayo kii marka hore ku dhafasho wax falgal ku jira wax falgal kuma sameeyna halka markaa joogto waxa ku imaan doona soo gaabsano insha Allah waxa halkaas ku imaan doona aad dareemaysaa min sin a square iyo min sin a square iyo 1 horgalaha hormari laga jaray dheh -1 iyo -1 taala isku dar waxay noqon doontaa -2 ay la socoto sin square a halkaas waxaan cadeynay in xeerkii kale afraad oo sheegaya asna sin 2a in la mid noqon doonto 1 - 2 sin square a xeerka ugu dambeeya ee afraad wuxuu iska noqon doonaa ka sida caadi boog soo qor wuxuu noqon doonaa tan 2a waxay la mid tahay 2 tan a oo la hoos dhigo 1 - tan square a sida caadiyan iska soo gaabsano xeer labaad oo tan ay leedahay jibta ina haya xeerka wada tan ay leedahay waxa waaye waa markii la joogo double angle la joogo mar qaar sin cos la isku qaybiyo mar lagu helayo jirto labaad xeer inta badan waxaan marka aan bilaaban example keen insha Allah waxaan qaadanaynaa example 1.10 oo nagu qoran page-ka 16aad qaybtan double angle formula example kiisa koowaad ah waxaa lagu siiyay soo koobayna insha Allah waxaa lagu siiyay oo lagu diray find the value of 2 theta waxaa soo ogaataa qiimaha 2 theta given the information hadii lagu siiyay macluumaadka about theta oo ku saabsan theta hadii lagu siiyay given waxaa lagu siiyay marka cos theta in la mid tahay 3/5 cos theta waxaa la mid tahay lagu siiyay 3/5 sin theta waxa ay dhacdaa waxay ka yartahay 0 waxayna noqonaysaa waaxda afraad ee noqonaysaa oo waxay ku fariisanaysaa sin markii la joogo waaxda afraad waxay noqon doontaa minus ay noqon doontaa oo negative sin 2 theta soo saar cos 2 theta soo saar and tan 2 theta soo saar okay aan hor u socon insha Allah marka aan talaabo qaadan waxaan qasaba inaan haysano cos inaan haysano sin inaan haysano markaas double angle formula aan raadin karnaa marka hadii buuga aan dib u laabanana cos kana la siiyay waa 3/5 waa cos waxa ka maqan cos mataankiisa kala ka maqan waa sin marka waxaan ka bilaabaynaa sin inaan helno sin waxaan ku heli doonaa xeerarka aan cadeynayna aan ku heli doonaa oo sin xeerkeedu muxuu ahaa waxaan ku raadin doonaa waa solution aan dhahno waxaan ka bilaabaynaa sin inaan helno sin aan raadina marka sin wuxuu noqon doonaa oo lagu helayo sin square waxay la mid tahay xeerkan ku shaqeyn doonaa 1 - cos square xeerkan ku shaqeyn doonaa marka aan u baahnay sin square u baahnay waxaan u baahanahay kaliya sin kaliya u helo halkan waxaan ka saari doonaa xidid halkan waxaan ka bixin doonaa si la mid ah xidid aan ka bixin doonaa waxa ay imaan doona marka inaan sin ku heli karo sin a inaan ku heli karo xidid laga saaray 1 laga gooyay cos la laba jibaaray oo ay la socoto inta ku heli karaan marka aan hor u socdo insha Allah aan bedelo 1 ka iska qoro cos waa naqana value analysis laga jaray dheh waxaan ka jaraynaa waa 3/5 ayuu cos ka noo yahay maxaan ku sameyn doonaa kadib laba jibaar ayaan ku sameyn doonaa waxaan ka saaraynaa marka guud ahaan waa bedelay cos qiimihiisa waa kana laba jibaar ku sameynay waxaan ka saaraynaa xidid hadii aan hor u sii socono marka wuxuu noqon doonaa waxa imaan doono tirada noqor waxa imaan doonaa 1 noqor 3 laba jibaar wuxuu noqon doonaa 9 ayuu noqon doonaa hooseeyana wuxuu noqon doonaa 25 ayuu noqon doonaa kadib waxa tiraahdaa waa taqaana iska fogay 25 qaadaysa hal horgara ku dhufanaysa 9 ka goynaysa sida aan example hore ku sameyn jirnay oo kale waxa inoo imaan doona inaan yiraahdo waxa inoo imaan doona inaan dhahno 25 hadii hal ku dhufan 25 ka goyn waxay noqon doontaa 16 la hoos dhigay 25 noqon doontaa in tirada marka halkaan marayno hadii aan ka saarno 6 tooxid waxay noqon doontaa 4 5 labaad ka saarno waxay noqon doontaa 5 waxayna soo bixi doonaa 4 la hoos dhigay waxayna soo baxaysaa jawaabteena noqon doontaa 4 la hoos dhigay 5 ay noqon doontaa laakiin waxaan siin doonaa negative sababta negative siinayna waxay tahay sin-ka example keena koow markaan soo aqrinayna waxa la dhahay sin-ka wuxuu dhacaa waaxda afraad sin markii la joogo wuxuu dhacaya minus hadda solution qaybta koowaad ayaan gudgaleynaa waxaana ku shaqeyn doonaa sin 2a waxay la mid tahay 2 sin a cos a booska a na waxay inoogu taagnaan doontaa
theta ayaa inoogu jirta sidaas aan u shaqayn doonaa qaybteena koowaad aan ka shaqo bilaabeynaa waxaan dhahaynaa sin 2 waayahay 2 oo ay la socoto waxaan dhahaynaa sin theta maanta qiimaheeda waxaan soo saarnay 4.5 sida ognahay waxaan lagu dhahay theta waxa ay ka yar tahay 0 haddii 0 ka yar tahay 360 ay joogtaa waa marka ay minus tahay waa marka sin markaas waxay tahay minus marka value aan qaadan wuxuu yeelan doonaa minus value ayuu yeelan doonaa minus value waxaan dhahaynaa marka wuxuu noqon doonaa minus 4 over waxaan dhahaynaa of 5 ayuu noqon doonaa maxaa yeelay positionka uu yaalaa wuxuu yahay minus maxaa yeelay sin booska afraad waxda afraad markii la joogo waa minus waxay noqon doontaa marka minus 4 over 5 ayay noqonaysaa cos theta waxay noqon doontaa mar walba waxay ku xiran tahay waaxda ee taalna iska fiiriso cos theta barta ee taal ay ku saxanta waa plus ayay noqon doontaa qiimaha associates aan qaado cos theta wuxuu noo ahaa oo nala mid yahay oo value ahaan waa given oo ahaa marka nala sii wuxuu nala mid ahaa 3 over wuxuu nala mid ahaa 5 wuxuu nala mid ahaa 3 over 5 ayuu nala mid ahaa halka markaad joogto maxaa samayn doontaa iska soo gaabso waa iska fraction aad taqaano hadda marka halka joogto wixii sareeya isku dhufo waxaan samayn doonaa laba lagu dhifta negative 4 waxay noqon doontaa waa negative 8 waxaan ku dhufan doontaa 3 waxay ku noqon doontaa negative 24 hooseeyana isku dhufo 5 times 5 waxay noqon doontaa waa 25 halkaas waxaan ku soo saarnay sin 2 ayaan soo saarnay aan socono si lamida waxaan soo saari doonaa cos 2 theta waxaa lagu helaa cos square a laga jaro sin square a ayaa lagu helaa cos square a maxay la mid tahay qiime aan ku bedelaynaa qiimaha cos marka hore nala sii wuxuu inoo ahaa given wuxuu inoo ahaa 3 loos dhigay 5 ayuu inoo ahaa qiimaha sin anaga soo saarnay minuskan waa xeer asagana minus kale igu wataa wuxuu noqon doonaa minus wuxuu inoo noqon doonaa qiimaha sin minus 4 of 5 ayuu noqon doonaa okay asaa marka hore minus watay minuska side ahaan ayuu ku hel dhanka uu yaalo ayuu ku hela maadaama uu yaalo waaxda afraad uu yaalo sinka okay halka waayahay 3 of 5 isku wargaray qaybtan isku wargaraysa lamida haddii aan isku wargaray waxay noqon doontaa waa 9 over waxay noqon doontaa 25 qaybtan kalena minuska inoo qor qaybtan kale isku wargaray waxay inoo noqon doontaa waa 16 over waxay noqon doontaa 25 minuska xataa laba jeer isku dhacay meeshuu ka baxayaa kadib waxaan dhihi doonaa hooseeya hal xab inooga soo qaad sareyn noo kala jar waxaan dhahaynaa 16 iyo 9 haddii la kala jaro waxay noqon doontaa 7 hooseyn waxay noqon doontaa 25 waxaan ka soo qaadaysaa maadaama intan uu yaalo 25 halkan 25 uu yaalo xab ka soo qaado waxay noqon doontaa 7 la hoos dhigay 25 waa maxay laakiin jawaabtu waxay noqon doontaa negative maxaa yeelay 16 ayaa negative watay waxa ugu dambeeya tan 2 theta maxaa lagu helaa sin 2 theta oo loo qaybiyo cos 2 theta labaas ayaan ku heli doonaa sidoo inta badan tan wuxuu dhigmaa slope ama wax kala maaha aan socono marka tan 2 theta maxaa value oo haysanay waa tan 2 theta waxa haysanay waa negative 24 oo la hoos dhigay waxa haysanay oo noo soo baxay 25 tan 2 theta waxa haysanay waa negative 24 oo la hoos dhigay 25 la sii hoos dhigay cos 2 theta maxaan helnaa hadda soo saarnay waxaan soo helnaa isna si lamid ah negative 7 oo la hoos dhigay 25 halka marka joogto 25 iyo 25 xadhees isla bixi waxaa isku soo haraya oo ku imaan doona inaad tiraahdo negative na isla bixi waxaa ku soo haraya inaad tiraahdo 24 over waxaa ku soo harayo 7 isku sii yareen kale ma jirto bartaas ayaan ugu bixinaa guud ahaan waxna loo dirna halkaas uu ku dhamaaday waadna ku mahadsantahay ilaa iyo daawashada muuqaalka inta halka ka soo gaartay oo nala socotay hadduu muuqaalku ku anfacay like inoo saarsi dad badan asxaab badan u gaaro una faa'iiday asxaabtaada kale inay muuqaalkan uu gaaro si ay uga faa'iidaystaan insha Allah waxayna kaga xiran tahay like to muuqaalku balso haddii aad nagu cusubtaana subscribe saar